wuxuu gabi ahaan bedelay fikradii laga haystay cryptocurrency wuxuu noqday qofka ugu hadalhaynta badan suuqa lacagaha digitalka. FTX, the wealthiest person under 30 in the world. What makes him so different and so rich? You said you always wanted to get rich, but not for the reasons you might expect. siyaasadda ayuu saameyn ku yeeshay asagoo lacaga balaayiin ah ugu deeqaya dawladda. shirkadiisa FTX waxay noqotay shirkad ay hadal hayaan dhammaan dadka saameynta leh. Glad to be partnering with FTX. If you're wondering, well, what is FTX? A company to win naming rights to a major U.S. arena. FTX is a platform where they offer 85% lower fees than their top competitors. They have the most coins, they have giveaways where they give free coins. FTX is the best crypto exchange in the world with no magaciisa iyo muuqiisa meel walba ayay ka soo muuqanayeen qof walbana wuxuu aaminsanaa dhowr iyo 20 jirkan bilyaneerka ah inuu yahay genius sidoo kalena uu wax ka bedeli doono mustaqbalka teknolojiyadda. Everyone seemed to believe it from Wall Street to celebrities. Here's my boy Sam from FTX. And even Washington DC. His FTX team were among the top political donors. The multi-billion-dollar class. guryo qasri ah oo aad u waaweyn ayuu ka gatay Bahamas. So all these people who were working at FTX and at Alameda, they lived in this penthouse, so their entire lives in the Bahamas were intertwined. laakiin haddadan aan kula hadlayo wuxuu ku xukuman yahay xabsi daa'in inta noloshiisa ka dhimanna xabsigaas ayuu ku dhameysan doonaa. waa kuma ninkan muddada kooban ku noqday bilyaneerka laakiin maanta xabsiga dhex jiifo. Sam Bankman-Fried has been arrested in the Bahamas, Is being held in jail. Sam Bankman-Fried will be extradited to the U.S. 8 criminal charges. Bankman-Fried and his co-conspirators stole billions of dollars from FTX customers. Highly unlikely anyone would recover losses. $1 million bail bond. A trial date has been set for October 2nd. magacaygu waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. sanadihii 2021 iyo 2022 dadka waxay aad ugu yaaceen inay maalgashi ku sameystaan cryptocurrency waxaana qof walba ka dhaadhacsanayd markuu maqlo crypto inay ku soo dhacdo in si dhaqso ah lagu taajirayo ama milyaneer lagu noqonayo sida in lottery lagu guuleysanayo. newska warbaahinada kala duwan iyo social media meel walba waxa la hadal hayay dad bitcoin ka taajiray oo hal mar milyaneer noqday. Music producer From bankrupt to a millionaire. to millionaire. This is basically winning the lottery. Become the next crypto millionaire. is Bitcoin. What is up with Bitcoin? People are getting rich from it. Everyone's chasing it. Bitcoin is going up forever, Deirdre. Forever. waxaana ku soo biiray dad caan ah sida fanaaniinta, ciyaaryahanada iyo siyaasiyiinta ayagoo si joogto ah u gadanayo NFT una maalgashanayo cryptocurrency. Jumped into the world of cryptocurrency. I'm going to tweet out the information on how you can buy this NFT. Look at this. They look like they could be friends. They're buddies. haddii aad crypto isticmaasho waxaa laga maarmaan ah inaad sidoo kale isticmaasho crypto exchange. dadka caadiga ah badanaa marka ay crypto gadanayaan waxay ka dhex gataan crypto exchange. sidoo kale exchange-ga wuxuu kuu sahlayaa inaad lacagahaaga si sahlan ugu kala wareejisato bangiga. saddexdan shirkadood waa kuwa ugu waaweyn crypto exchange. nambarka koowaad waxaa ku jiro shirkadda Binance waxaa iska leh ninkan lagu magacaabo Changpeng Zhao oo lagu naaneyso CZ. nambarka labaad Coinbase waxaa iska leh ninkan asagana lagu magacaabo Brian Armstrong. tan ugu dambeyso FTX. To be partnering with FTX. If you're wondering, well, what is FTX? FTX is like the best exchange. They're a safe exchange where people can trade things like cryptocurrencies. The first crypto company to win naming rights to a major U.S. arena. FTX is a platform where they offer 85% lower fees than their top competitors. They have the most coins, they have giveaways where they give free coins. FTX is the best crypto exchange in the world with no fixed fee. aas-aasaha iyo milkiilaha shirkaddan Sam Bankman-Fried asagoo aanan gaarin da'da 30 sano ayuu sameeyay lacag dhan 26 bilyan oo dollar. weliba hantidaas wuxuu ku sameeyay dhowr sano oo kaliya. taariikhda abid ma dhicin qof sidan u da'yar oo muddada intaan la eg ku sameeyay lacag intaan la eg. The wealthiest person under 30 in the world. muuqaal ahaantiisa markaad eegto waxaad ku shakinaysaa inuu yahay darbijiif qaabka timihiisa oo isku dhaxyaacsan. funaanad ka weyn iyo surwaalkaas gaaban ayuu mar walba wataa xitaa markuu interviewga bixinayo. wuxuuna dhex seexdaa xafiiskiisa. wuxuu si joogto ah ula kulmaa dadka caanka ah uguna saameynta badan. weliba wuxuu saameyn ku dhex yeeshay siyaasadda. First of all, his appearance, he's only 29 years old and he typically wears a t-shirt or a sweatshirt that has the FTX logo on it, khaki shorts. Very often when people get wealthy, they buy fancy suits and so forth. You haven't gone to that phase yet, right? Not so much. He sounds a little bit like most tech bros I went to college with, not showering a ton or really messy. kambanigiisa FTX waxaa
la aasaasay 2019 sanado ka hor ninkan lama aqoon laakiin hadda meel walba ayuu ka soo dhex muuqday hamigiisu wuxuu ahaa inuu dhiso dadkana ka gado magaciisa image-kiisa iyo shirkadiisa si uu dadka uga helo aaminaad iyo kalsooni. You see next to me is the most generous billionaire in the world. And my goal is to do as much good as I can for the world. May 2022 nin lagu magacaabo Mark Hodis ayaa wuxuu bilaabay inuu Twitterkiisa soo dhigo qoraalo lid ku ah ninkan iyo shirkadiisa. Email ayuu u diray Bloomberg wuxuuna ka codsaday inay baaritaan ku sameeyaan shirkadan FTX iyo meesha waxaanu lacagaha ay ka keeneen. Su'aasha sidee shirkadan oo 2 sano oo kaliya jirto intaano dhaqaale ah ay ku sameysay yuu yahay Sam xaguu ka keenay lacagahan uu sida joogtada ah u bixinayo aan dib ugu laabana nolosha Sam iyo sida uu heerkan ku soo gaaray wuxuu ku dhashay Silicon Valley magaalada tiknoolajiyadda caanka ku ah jaamacadda wuxuu bartay oo uu ka qalin jabiyay kulliyadda fiisigiska wuxuuna aad u jeclaa xisaabaadka iyo xalinta xujooyinka adag 24 jirkiisa ayuu ka shaqo bilaabay shirkadda Jane Street 3 sano oo uu la shaqeynayay uu ka tagay wuxuuna sheegay inuu qorshooyin kale isku dayi doono uu asaga u madax bannaan yahay gabadhan 22 jirka ah oo lagu magacaabo Carolina Ellison ayay Jane Street iskala shaqeyn jireen meeshaas ayayna saaxiibtinimadooda ka soo bilaabatay Carolina waxay sheegtay haddii shaqadan aadka u lacagta badan uu Sam ka tagay waxa kale ogama uunan tagin ee fursad aad u weyn ayaa jirto ayadana isla marka shaqada ayay ka tagtay gabadhan xisaabta ayay aad ugu fiican tahay waxayna ku guuleysatay tartamo badan oo xisaabaad ah Caroline and Sam met when they were working at Jane Street and she was winning math competitions. I talked to Sam who had just started out. Sam wuxuu bilaabay inuu qoro listi waxa uu ku dhaqaaqi lahaa inuu noqdo journalist inuu ku biiro siyaasadda inuu ganacsade noqdo ama uu aas-aaso shirkad uu asaga u madax bannaan yahay laakiin inta uunan go'aan ka qaadan waxa uu noqon lahaa waxaa shaqo u soo bandhigtay shirkadan lagu magacaabo Effective Altruism meeshaas ayuu ka shaqo bilaabay waxayna isbarteen gabadhan lagu magacaabo Tara Makuli oo shirkadaas ka ahayd madaxa howlgalka waqtigaas Sam ma uusan xiiseynaynin crypto laakiin waxaa jirtay hadalhayn ah in sanadyada soo crypto ay noqonayso hadalhaynta lacagaha mustaqbalka 438% for 2017. The cryptocurrency has pushed past $7,000. It just crossed the $16,000 threshold. It is in the next 20 years $1 million a coin. 2017 Sam iyo gabadhii ay meesha isku barteen ee Tara waxay aas-aaseen shirkad lagu magacaabo Alameda Research meeshan ayay wax walba ka bilaabanayaan shirkadan cusub ee Alameda Research wuxuu ka shaqaaleysiiyay dad oo isku hubo Gary Wang 24 jir ee saaxiibo ahaayeen oo ay isku barteen tartan xisaab 2008 wuxuu u dhiibay technical brains ama qaybta farsamada shirkadda Nishat Singh waxay ka shaqeynaysay shirkadda Facebook haddana Sam ayaa shaqaaleysiiyay da'deedana waa 22 jir Carolina Ellison ma xasuusataa gabadhan waa gabadhii ay iskala shaqeyn jireen Sam Jane Street oo ayadana ku fiicneed xisaabta Sam markuu shaqada ka tagay ayay ayadana ka tagtay haddana waxay ka shaqo bilowday Alameda Research Andy Kojan wuxuu madaxa shaqaalaha ka ahaa shirkad trading sameyso haddana shirkadan ayuu ka noqday Chief Operating Officer da'diisana waa 28 jir waa ninka da' ahaan ugu weyn dhammaan shaqaalaha shirkadan shaqada Alameda Research waa shirkad trading ku sameynayso crypto Bitcoin ayay ku gadanayaan lacagta US dollar waxayna ku iibinayaan lacagta Japan oo qiimaha Japan mar walba ka faa'iido badan yahay lacagta dollarka meeshaasna faa'iido fiican ayay ka sameeyeen waa fursad aad u fiican oo faa'iido weyn laga helayo 30 milyan 50 milyan oo dollar ayay asbuuc walba qaban jireen laakiin hal cilad ayay leedahay ma sii soconayso oo mar walba faa'iido fiican laga helayo waxayna ku xiran tahay sida uu suuqa yahay iyo qiimaha Bitcoin 2018 shirkadda Alameda Research dhaqaalaheeda hoos ayuu u soo dhacay laakiin macaamiisha shirkadan waxa aynan ogeyn waxa u muuqatay guusha iyo xawaaraha ee ku socota shirkadan webka shirkadan markaad soo booqato waxaad ugu tagaysaa xayeysiin sida inay dhahayaan waxaan nahay company crypto trading sameeya kuwa ugu fiican USA wax khasaare ah lamaanan kulmin muddo 6 bilood ah macaamiisha waxa u muuqatay xayeysiintan beenta ah waxayna maalgashanayeen shirkadan sii dumayso laakiin dhinaca kale Sam wuxuu hoos ka watay qorshe uusan cidna la wadaagin May 2019 Sam wuxuu aas-aasay
shirkad cryptocurrency exchange oo lagu magacaabo FTX inta ugu badan dhaqaalaha shirkadda asaga ayaa lahaa halka saaxiibkii Gary Wang uu ku lahaa 10% oo kaliya Sam hadda waxaa hoos imaado laba shirkadood Alameda Research oo ah shirkad trading iyo FTX oo ah ayadana shirkad exchange FTX bilow fiican ayay ku bilaabatay inkastoo laga dhex aasaasay Alameda Research isla sanadkaas la aasaasay July 2019 FTX waxay qabatay $8 milyan oo dollar Sam labadiisa shirkadood wuxuu xarun uga dhigay Bahamas isla bishaas uu Bahamas u wareegay wuxuu shaqaaleysiiyay nin lagu magacaabo Mark Wagan ninkan wuxuu ahaa madaxa commissionaga shirkad lagu magacaabo CFTC wuxuuna sidoo kale ka dhex muuqday siyaasadda asagoo saaxiibo badan ku lahaa White House-ka Sam shaqaaleysiinta ninkan waxay u ahayd wado u sahashay inuu ka soo dhex muuqdo siyaasadda Mareykanka bil kadib Sam wuxuu ka soo dhex muuqday Congress-ka asagoo kambanigiisa FTX soo bandhigayo vision-ka iyo waxyaabaha ay damacsan yihiin iyo sida ay bulshada faa'iido ugu leeyihiin the potential to improve a lot of people's lives. And we're also happy to talk with other regulators about potential products in the United States. sanadkii 2021 FTX waxay ku fiday dhammaan qaaradaha dunida Sam wuxuu noqday deeq bixiyaha lixaad ee ugu weyn siyaasadda Mareykanka $50 milyan oo dollar ayuu si shakhsi ahaan ah ugu deeqay dawladda halka shirkadiisa FTX ay ugu deeqday $100 milyan oo dollar wuxuu lacag aad u badan ku bixiyay xayisiinta shirkadiisa qof walba oo bulshada ka dhex muuqdo siyaasi fanaan youtuber ciyaaryahan dhammaan waxay xayisiinayeen shirkadda FTX sanadkii 2021 Binance oo ah number 1 crypto exchange ayaa waxaa laga mamnuucay wadamo badan Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, and how it just got banned in the United Kingdom. Binance has been banned from Ontario, Canada. Not authorized to operate in Japan either. laakiin Sam asagoo ka baqayo in shirkadiisa sidaana kale loo mamnuuco ayuu xiriir fiican la sameystay siyaasiyiinta waddanka Mareykanka sanadkii 2022 waxaa dhacday khasaarihii abid ugu weynaa ee crypto waxaa suuqa ka baxay oo bankrupt ee ku dhacday shirkado waaweyn oo crypto ku jiray waxaa qiimihii lumiyay oo khasaaray Terra iyo Luna dhinaca kale Sam iyo shirkadiisa waxay badbaadinayeen shirkadihii suuqa ka sii baxayay asagoo lacag badan ku bixinayo qaarkoodna gadanayo si uu u badbaadiyo inay sii jirto ama sii shaqeyso lacagaha digitalka There's ever been a crypto event, a bad event this large in crypto history. Terra Luna took all my monies. Fund 3 Arrows Capital ordered by court to liquidate. It had exposure to the now collapsed Terra USD stablecoin. Everyone is intertwined in some way. More pain in the world of crypto. Voyager Digital files for Chapter 11 bankruptcy protection. Shouldn't have left my money in Voyager. Left all my life savings in the bid. A major crypto lender went from managing billions in assets to filing for. laakiin meeshan su'aal ayaa taagan suuqa crypto meesha abid ugu xumeed ayay maraysaa shirkadihii saameynta lahaa iyo lacagihii cryptocurrency-ga ayaa waxay ku dhow yihiin in gabi ahaan ay hawada ka baxaan laakiin Sam iyo shirkadiisa siday uga badbaadeen musiibadan ku dhacday crypto xaguu ka keenay lacagahan uu ku bixinayo suuqa miyaysan asaga saameyn ku yeelan It was announced that Sam Bankman-Fried of FTX was going to buy Voyager for roughly $1.4 billion. Third major crypto company to file for bankruptcy. Coinbase is laying off workers along with BlockFi and Crypto.com. What is going on? dhinaca kale shirkadii kale ee Alameda Research ayadana way shaqeysaa bilowgii November 2022 ayaa waxaa bilowday inay dadka ku baraarugaan Sam waxa uu yahay August 25teeda CEO-ga Alameda Research ayaa xilka iska casilay bil kadib madaxa xarunta USA ee shirkadda FTX ayaa asagana shaqada iska casilay isla bishii ku xigtay ee October article ay qoreen The Blocks ayaa waxaa lagu sheegay madaxii suuqgeynta shirkadda FTX inuu asagana shaqada iska casilay waxba hadda meesha ka jira oo wax weyn ayaa khaldan qof ayaa jabsaday Alameda Research wuxuuna soo bandhigay balance sheet-ka shirkadaas balance sheet-ka waa meesha kaliya ee laga ogaado shirkadaha inay caafimaad qabaan inta ay dhaqaale sameeyaan inay khasaaro ama faa'iido ku jiraan balance sheet-ka shirkadda Alameda Research wuxuu cadeynayaa 14.6 bilyan oo dollar inay shirkadan asset u haysato laakiin dhammaan lacagahaas ma ahan lacaga ay shirkadda sameysay ama ay leedahay ee waa lacaga ka imaaday FTT waa lacagtii maalgashadayaasha ee FTX oo labada shirkadood FTX iyo Alameda Research lacagahooda isku dhex qasnaayeen waxay adeegsanayeen oo meel walba ay ku bixinayeen lacagihii macaamiisha waxaa bilaabatay in si joogto ah looga hadlo Sam iyo shirkadihiisa New York Times article ay soo saareen waxay ku sheegeen Sam inuu ku takrifalay lacagihii macaamiishiisa lacagihii malaayiinka ahaa oo sida joogtada ah ugu bixinaya xayisiimaha ugu deeqaya dawladda
guryaha uga gatay Bahamas waxaasoo dhan waxay ahaayeen hantidii maalgashadayaasha iyo macaamiisha ninka iskala shirkadda Binance ee CZ ayaa wuxuu soo dhigay Twitterkiisa oo ay ku xiran yihiin dad malaayiin ah FTX ayaa caawinaadna weydiisatay asagoo oo la jeeday shirkaddan inay hawada ka baxayso isla markiina Sam ayaa wuxuu soo dhigay Twitterkiisa in shirkadda FTX ay fiican tahay oo ay haystaan lacag ku filan waxaa bilaabatay in dadka ay la baxaan lacagahoodii shirkaddii weyneed ee FTX oo ku fadhiday lacag dhan $30 bilyan bankrupt ayaa ku dhacay oo hal mar ay dhulka gashay laakiin dad badan ayaa lacagahooda ku waayay oo ku qasaaray Just moments ago, FTX filed for bankruptcy. From a $32 billion company to bankruptcy in the matter of just 4 days or so. There's so much we don't know. There's so much we don't know. Well, here's what we know. He's broke. And he's in big trouble. He's in big trouble. waxaa bilaabatay in la eedeeyo dadkii caanka ahaa ee xayisiinta u sameynayay shirkadda FTX maadaama ay dadka u soo jiideen shirkaddan in la maalgashado Can't trust anybody now that had anything to do with FTX. Very pissed off at these YouTube fluffers who have been promoting FTX over the past year or so. All paid eye-watering amounts of dadkii caanka ahaa ee shirkaddan xayisiinayana waxay bilaabeen inay muuqaalo raaligelin ah iska soo duubaan Can't even begin to share how devastated and sorry I am. A-list celebrities plus Kevin O'Leary told you what a great firm it was. I don't think that guy has an evil bone in his body. Kevin O'Leary, Mr. Wonderful, is going around and in a despicable way, he's still standing up for Sam Bankman-Fried. You can love him or hate him given what's happened, but he was one of the most brilliant traders in the crypto universe. Tom Brady, Gisele Bundchen, Larry David, Naomi Osaka, and Steph Curry are among the celebrities accused in a class action lawsuit. Class action lawsuit alleging that the crypto platform FTX misled customers. Sam ugu dambeyntii waa la soo qabtay waxaana lagu xukumay xabsi daa'in meeshaasna waxaa gabi ahaan ku soo burburay shirkaddii Alameda Research iyo FTX dad aad u fara badan lacagahoodii ayaa uga qasaaray shirkaddaas CFTC has now sued Sam Bankman-Fried for violations of federal commodities laws. There are also claims that those executives took hundreds of millions of dollars in loans from Alameda and used it to buy stuff like real estate. This morning we unsealed an 8-count indictment charging Samuel Bankman-Fried, FTX's founder, with a series of interrelated fraud schemes that contributed to FTX's collapse. Well, tonight, he's in jail in the Bahamas, facing U.S. charges in what a federal prosecutor calls one of the biggest financial frauds in American history. muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalada sidaan oo kale ahna haddii aad ka hesho muuqaalka like saar wakhtigaagana waad ku mahadsan tahay